بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما يبلغ محمد بن عبد الله ما يبانكم مدها أرضي دكتاس سكول شيخ عثمان بن سكندري سكول قالها فصل كان ما يبغى فصل كفوم فو يجمع بانتا وجدي فده مادة بيولوجي جتر شيء لمات أو شيء the endocrine system. In this chapter can we examine maybe كبارنا بس كبردنا the regulatory molecules molecular نظامياش of the endocrine system حبس قنجرك عن مرينك لهين بس قنجرك تبدأ لهين the cells أسوق maybe كبردنا the cells إنه كذا أن glands قنجرة that produce them يهساريان and أسوق maybe كبردنا how they function سيدي أنشأين to regulate سيدي نظاميان the activity of the body activities jirkish aqooyisho the end of chapter the message the lana lan ka barada wala barada must be able to classify into shasar the meaning of dactylus glandis ganjirida tuban lahayn mismareenkan lahayna meelisho dactylus glandis ganjirida mareenka leh an hormones hormoonada meelisho suugaad lama identify into shall saaro kor isu ogaado kor the main endocrine system ganjirka mareenkan lahayna haan ku muhiimsan in the human body jirka bani aadamka jiraan and the hormones they produce your hormones hasaarayaan and their mechanism action your qaabka shaqeeyaan sharkan koonay bua structure of endocrine system structure أشارككم كم يبغى the structure of endocrine system. حبس قنجير كمارين كان لهين. The endocrine system consists of قنجير كمارين كان لهين consists of maybe كوبينيا glands قنجيرو widely separated from each other. هانسو سيدا كفافيان. هانسو سيدا إنس ديرجان. The each other مدمجكال no physical connection. هانسو مغل دولاد عن لهين. The endocrine glands قنجيرك مارين كان لهاينا are groups of the secretory cells ما يبغى ونجي أو دهامه سيديو by surrounded by extensive network شبكات دمبلار مسبضن of capillaries اتفتاح عليه that also facilitates فلوسايا diffusion of hormonal بهوش فلوسايا from كوكويان the secretory cells ما يبغى كويانا ونجي ولا سيديو توما يبغى نسيران the blood stream وموديد they also refer ما يبغى كلين كسي as dactylus endocrine ما يبغى كلين كسي dactylus glandis رنجيل مارين كنار مستبدل الله ولا أساس لينكبين ما يبغى because of the hormonal diffuse ما يبغى كباهن directly ستوصل ما يبغى كباهن to the blood stream ما يبغى ستوصل كباهن وموديد ستوصل كباهن hormones then carried marka may baa qaadeen in the blood stream rumo dhiiga qaadeen tumay baa jeedin target tissue or organs marba markaas toosan jeeyana tissue nudaga oo targetka mase organs oo baanay dhaxan kasta xasaar dhimo dhiiga jeeyaan hormoneska a substance waa hada secrete a substance waa walxo secreted by cells oo siidayaan dhaxamad that act taas oo shaqeeyaan to regulate iyo nidaamyaan the activity shaqooyinka of the cells in the body oo gudi jirka jiraan sida shaqada nidaamyaan may baa sharkana baad exocrine glands may baa secret may baa sideen substance walaha through omaran dactis jeeday may baa endocrine glands may baa aan waliyo sideen rumo dhiigle baahan laakiin tumay balata tubirata exocrine glands may baa mareenka tubidale exocrine glands secret may baa substance walaha sideen through omaran dactis tubiya mareen tube like a structure yo CO tubida qaabsha amale the substance walaha that can be include may baa komada water b enzymes hang iyo mucus iyo habga the dactis tubiyalka transport may gudbiyaan the substance walaha to specific location meel gaar ah gudbiyaan
تياداي واليوه سيدان دومو ديجل كفاساي تارجت مس تشوغي ستوسه دي دوم ديجنجين لكن the exocrine gland قنجر كان ولي وسحصار ستوسه من جي تشوغي مس organic us باهم با ولا حصار باهناي location inside and outside of the body جير غداشي او بناشي با ما باكم ده sweet glands قنجر ديني حصارو موكاس glands قنجر او حبي حصارو salivary glands يو قنجر anjufta and other digestive glands yo qanjir kale dheefshiid kala xiriiran examples of endocrine glands may ba tusaalan yihiin exocrine glands tusaalan yihiin ite mechanism action kala qaybsanka hormonalka iyo si oo shaqeeya hormones are classified hormonalka may ba lingibiyay steroid hormones iyo non-steroid hormones. Steroid hormones hormone kamel ma dufinta anan steroid hormones hormonal dufinta kamel man kala may ba kalin kasen steroid hormone amino acid hormones salin kase markii lamadan ingibiyay may ba lug fiiriyay based yolin sale on the structure qaab dhismeed jo solubility milmotion iyo mechanism action iyo qaabkii on shaqeeya markii na qaadano tiiko oo hayti steroid hormones. Steroid hormone estrogen and testosterone are two examples of steroid hormones. Lamada hormone ee estrogen iyo testosterone may ba example may ba tusaalan ayina steroid hormones waan may ba lamada hormone may ba qaabilsaniin xilliga tabarkalka dhahan sidaan estrogen oo qanjirka oo balaanto ku saabsan oo xilliga tabargalka sidoo iyo testosterone migalka two examples may ba tusaalan yihiin steroid hormones all steroid hormones dhamaan hormonalka awoog shaqeeyaan by causing of assign the target cell onuga targetka cell targetka to initiate intii bilaaw protein enzymes protein hasaaro steroid hormones kan as soluble in liquid may ba kamila maayana dufinta therefore saas daraadiya it can diffuse may ba ka baahan through the membrane cell may ba the target cell may ba ka baahayana hubka onaga oo markaas targetka kana ma bani hay non steroid hormones are also known may ba ka leeyin kasay amino acid hormones. Insulin and growth hormones are example of non steroid hormones. Lamadan hormone oo leh insulin iyo growth hormones may ba tusaalan yihiin non-steroid hormones. Insulin oo dheelitira sokorta jirkeenka jarto iyo growth oo growth hormone oo qaabilsan koritaanka jirka are two examples of non-steroid hormones may baa tusaalan yihiin non-steroid hormones. Amino acid hormones kan are non-steroid hormones kan must bind to the receptor may ba create dareen wadaha found in the membrane of the cell target may ba create dareen wadaha oo hubka onaga targetka markaas targetka because of that they cannot diffuse makabahayaan through the membrane plasma membrane hubka onaga makabahayaan waan galmay ba the endocrine glands and their hormones qanjirka mareenkan la mustaqbalin lahayn iyo hormoonadiis. The endocrine system qanjirka mareenka habdhiska qanjirka mareenka lahayn mustaqbalin lahayn includes may baan iska jare all the endocrine glands dhamaan qanjirada daataanaso secretes hadiyo hormones hadiyo may baan ku mid pituitary gland oo kala maskaxda may baa kale thyroid oo kala thyroid gland qanjirkan leero thyroid oo sunu kala dhuunto parathyroid gland oo sunu kala dhuunto aan may baa kale thyroid hostis adrenal gland oo kala sun kaliida pancreas oo kala sun ordo saaso kale may baa nidaro ovaries oo ahaanto oo kala female bilaanto and testes ahaniya saaso kale binal glands qanjirkan binal leero oo aan may baa qanjirka yar bini'aadamka may baa jara maskaxda anda thymus oo kala langus samboymas languska markii aan qanjirka nin koray oo hay pituitary gland may baa small glands waa qanjir yaru dadka with the
diameter of 1 centimeter kaasoo dhaxroorshiyay 1 centimeter that kaasoo located kiyaalo is located kiyaalo at the base of the hypothalamus mayba kiyaale hypothalamus hoostiisa kiyaalo it consists mayba koobna two lobes mayba lingibay lama dheewad oo ah anterior pituitary gland oo ah masqaada qaybta hor iyo posterior pituitary gland oo ah masqaada qaybta dambe laakiin aqaano kan kood oo anterior pituitary gland consists of mayba koobna specialized glandular cells unugyo oo qanjir gaar ah saareen that hanaso secrete acidian hormonaha sidayaan with variable function hanaso hormoon oo shaqooyin kala duwan qowdaha sidayaan which hanaso intaan regulate to the secretion of the other glands which hanaso regulate nidaamyaan the secretion of the other glands dhaamada qanjirada kale acidiyaan nidaamyaan this includes maybe kumada growth hormones thyroid stimulating hormones prolactin follicle stimulating hormones iyo luteinizing wabka ma kulisho habatabahan qaadaan maybe anaha qaadaan growth hormones maybe it stimulates maybe kaymis darangiriyay cell division qaybsanka unuga and the growth iyo koritaanka especially gaar ahaan bones and muscle cells unugyada lafoosha mase murqo in the childhood xilliga ciyaalnimada oo kalama maybe hormoonka maybe TSH oo lagu gaabay thyroid stimulating hormones it is stimulating the thyroid gland maybe darangiriyay miskiyay gland oo thyroid gland ninka saw to produce hansar hormone of the hormone called thyroxine hormone thyroxine sila hansar maybe limbahna hormone kan leero TSH oo lagu gaabay thyroid stimulating hormone kan kale maybe prolactin oo lagu gaabay BRL stimulating maybe darangiriyay miskiyay mammary glands qanjirka linka saw mammary to produce hansar milk caana in the mammals naaslida after giving birth markii dhalan dan naasida markii dhalo aan hansar maybe limbahna qanjirkan leero prolactin oo lagu gaabay BRL follicle stimulating hormones oo lagu gaabay SFH it's required when for the development ceiling hormone of ovarian follicles oo ovarian jar ceiling hormone in female haweenka maybe limbahna hormoonkan leero follicle stimulating hormones in male kana it's required maybe limbahna for the development hormone of sperm shahwada male hormone maybe limbahna hormoonkan leero follicle stimulating hormone kining dambe oo sharka maybe luteinizing hormone it is stimulates maybe kayay to production hasaro of estrogen and progesterone yo saaro lama hormone by kusaaran ovaries oo hanta kusaaran it's needed when bahna for ovulation in the female reproductive cycle meertada taranka ee dumarka sidii oo linsaar maybe bahna luteinizing in male magalkana stimulates maybe kayay the testis haniya to produce hansaaran testosterone qanjirka oo leero hormoonka oo leero testosterone which kaaso needed limbahna for sperm production sila hansar shahwada andas aso kale the development ban hormariyay the male secondary sexual characteristics astaamaha koritaanka ee magalka maybe sharkan